wasiirka arrimaha dibadda ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Masar. Ikraan Shira ayaa markale faafahinta warkaan eegaysa. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Abshir Cumar Huruuse ayaa booqasho ku tagay xarunta safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar. wasiirka ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay safiirka, qunsulka, la taliyayaasha xoghayaasha iyo howlwadeennada kale ee safaaradda, iyagoo warbixin ka siiyay howlaha ay safaaraddu u hayso muwaadiniinta Soomaaliyeed. intuu wasiirku ku guda jiray booqashada, waxa uu la kulmay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee halkaasi wax ka barata oo safaaradda loogu adeegayay xilligii iyo kuwa si kumeel gaar ah uga shaqeynayay. Abshir Cumar, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa madaxda iyo shaqaalaha safaaradda ku bogaadiyay shaqada wanaagsan ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed u hayaan. booqashada wasiirka ku tagay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Qaahire ee dalka Masar ayaa waxaa ku welinaya xoghayaha joogtada ah iyo agaasimaha waaxda Carabta iyo howlwadeenno kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Ikraan Shira, Cilmi, Juba TV.